السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامتين meel kastoo dunida daafiyada ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena update box office inta badan barnaamijkan waxaa kaga bogataan aflaam tiyaatarada ay saaran sidoo kale ganacsada ay sameynayaan barnaamijka inta badan kusoo qaadana maantana kuma sii jirto maadaama shaleeto saddex film oo weyn ay soo bixin intaan guda galin barnaamijka hadaa channel ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar sidoo kale loobin inaa muuqaalka laagi noo saarto sidaan ka warqabna saaxiibada qiimaha badan shaleeto jimaaca saddex film oo weyn ayaa saddex film oo weyn saaxiibada qiimaha badan fanka hindi laga leeyahay ayaa soo bixin oo baan hindi ah sidoo kale filmka Vikram waxa hogaamiyay ka jalaag lagu magacaabo Kamal Hassan sidoo kale ninkii Akshay Kumar asna wuxuu la imaaday saaxiibada qiimaha badan filmkiisa Samrat Befraj sidoo kale wiilka lagu magacaabo Dave Shah asna wuxuu la imaaday filmka lagu magacaabo Major sida daraaddeed saddexdan film ganacsada ay sameeyeen ayaan barnaamijka qaybaha hore ku bilaabi doonaa bal marka hore waxaan ku bilaabi doonaa filmka weyn lagu magacaabo Vikram saaxiibada filmkan shaleeto jimaaca wuxuu qaatay maalin qurux badan sidoo kale ganacsi adag ayuu sameeyay sida hadda shaaca laga qaaday filmkan guud ahaan dalka Hindi saaxiibada qiimaha badan canshuurta ka hor wuxuu soo xiray lacag gaarayso 41 kor ayuu soo xiray overseas kam suuqyada caalamkana filmkan wuxuu ka keenay lacag gaarayso 15 karoor wadarta guud filmkan ganacsigiisa waxa loo yaqaan dibadda marka la isku daro saaxiibada qiimaha badan wuxuu soo xiray lacag gaarayso 56 karoor ayuu soo xiray canshuurta ka hor qolyaha jaradaha qiimo waxay ka heleen saaxiibada qiimaha badan saami gaaray 35 karoor ay ka heleen taasoo ka dhigan saaxiibada qiimaha badan hal guuleysta kaliya ayaa jirka soo filmka Vikram maadaama labada film kala kala saaxiibada qiimaha badan Samrat sidoo kale filmka Major Siliti sidoo kale sida dhaxada filmadaas iskaga furmay laakiin filmkii weynaa Vikram si hoola ayuu filmkan ku furmay maadaama saaxiibada qiimaha badan Kamal Hassan xiiso loo qabo ku dhawaad 4 sano shaashada ka maqnaa sida daraaddeed filmkan ganacsiga ugu badan wuxuu ka sameeyay dhulka laga leeyahay Tamil Nadu maadaama in ka badan 25 kor ayuu ka soo xiray dhulka laga leeyahay Telugu dhulka laga leeyahay taamilka kaliya ayuu ganacsi adag filmkan ka sameeyay laakiin filmkan saaxiibada maalintiisa koowaad qolyaha jaradaha qeyb waxay ka heleen saami gaaray 35 karoor haddana waxa lagu shartama filmkan saddex maalmood inuu ku gaari doono lacag gaarayso 100 karoor ayuu lacagtiisa nadiifka saaxiibada qiimaha badan ku gaari doona sida daraaddeed big achievement ay gaareen teamka kale maadaama Vikram saaxiibada qiimaha badan maalintiisa koowaad ganacsi uu sameeyay ganacsi adag ayuu sameeyay sidoo kale maantana saaxiibada ganacsi adag ayuu sameeyay sida rajanaa maadaama wig in saaxiibada qiimaha badan la gudagalay sidoo kale maanta guudaan dalka Hindiina oo fasax ka jir inta badan sabti ahadna ma shaqeeyaan sida daraaddeed waxa la rajayn doonaa filmkan sarakac wali inuu sameyn doono sidoo kale waxa la qiyaasaa saaxiibada qiimaha badan ganacsigiisa oo shaleeta sameeyay inuu maantana ka ag dhawaan doono almost waxa la rajayn doonaa filmkan 40 karoor lacagta nadiifka inuu keeno doono sida daraaddeed filmkan Vikram ganacsigiisa 35 karoor ay keeneen qolyaha jaradaha qayb sidoo lacagta guud soo xiray gaaraysana 56 karoor bal markaana umaana saaxiibada qiimaha badan filmkii weyn lagu magacaabo Samrat Befraj hogaamiye ka Akshay Kumar saaxiibada qiimaha badan filmkan si loo iskaga bilowday marka hore wala oo darasay maadaama filmkan ganacsigiisa waxa uu dhaxay sida hadda shabakada box office India shaaca ka qaaday 10 karoor bar ilaa 10.5 karoor ayuu filmkan soo xaday intuu dhaxay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan filmkan ganacsigan kuma filna maadaama uu yahay film big movie sidoo kale in ka badan 200 karoor miisaanad gaaraysana uu xambaarsan haddaba saaxiibada qiimaha badan shabakada box office waxay leedahay filmkan si liita ayuu ku bilowday inkastoo waxa la leeyahay maanta sabti ah oo sarakac u sameyn doona sida hadda la rajaynaa sidoo kale tiyaatar loo yaqaan multiplexka ayuu aadka gedmi doona maadaama saaxiibada qiimaha badan reer magaalka inta badan maalmaha sabtida iyo hadda ay jaanisayaan sida daraaddeed waxa la leeyahay filmkan maalintiisa labaad ganacsi adag ayuu sameyn doona saaxiibada qiimaha badan shabakada box office waxay leedahay Akshay Kumar filmkan Samrat Befraj waa filmkiisa labaad ugu qaalisan abad uu sameeyay Akshay Kumar intuu 30 sano fanka ka tirsan yahay Akshay Kumar saaxiibada qiimaha badan filmkiisa ugu qaalisan abad uu sameeyay waa filmkii sanadkii hore la daawaday dhamaadkiisa waa filmka lagu magacaabo Zorian Fashe kaasoo lagu qarash garay adduun lacagad gaarayso 200 karoor miisaanad gaaraysa ayuu xambaarsan haddana saaxiibada qiimaha badan filmkan lagu magacaabo Samrat Befraj asna wuxuu xambaarsan miisaanad gaaraysa 200 karoor sida daraaddeed filmkan maanta saaxiibada qiimaha badan shalata ganacsi dhexaad ayuu iskaga bilaabay sida hadda shabakada box office India ay leedahay bal markaan saaxiibadan soo qaadanna filmkii kale ee weyn lagu magacaabo Major oo hogaamiye ka wiilka lagu magacaabo Dave Shah saaxiibada qiimaha badan ogaada filmkan asna ganacsiga ugu adag wuxuu ka sameeyay dhulka laga leeyahay dhankaasi Telugu sida hadda shabakadaha inta badan ay shaac ka qaadayaan bal marka hore saaxiibada qiimaha badan aan ku bilowna filmkan dhulka laga leeyahay Telugu wuxuu ka soo xiray canshuurta ka hor lacag gaarayso 6.85 karoor ayuu soo xiray sidoo kale qolyaha jaradaha qeyb waxay keeneen saami gaaray 4 karoor Hindi inteeda kale filmkan wuxuu ka keenay lacag gaarayso 35 lag kale ku keenay sidoo kale Hindi marka lagu daawanayna wuxuu keenay lacag gaarayso 35 lag ayuu keenay overseas kam suuqyada caalamkana filmkan
wuxuu ka soo xaray lacag gaarayso 2.35 karoor filimkan ganacsigiisa dibadda markaan isku darno saaxiibada qiimaha badan wuxuu soo xaray lacag gaaraysa 13.10 karoor ayuu soo xaray qolay jaradaha qeyb waxay keeneen saami gaaray 7.12 karoor ayay ka heleen filimkan saaxiibada qiimaha maajar wax lagu iibsay lacag gaarayso 18 karoor qolay jaradaha qeyb markay ka helaan lacag gaaraysa 19 karoor iyo filimkan kaliin hid noqon doona darajadaasna waxay kaga dhiman tahay 11.88 karoor ayay kaga dhiman tahay ogaada saaxiibada qiimaha badan inta badan aflaam Telugu laga leeyahay lacagaha lagu iibsado waqti hore ay soo daawacay inta badan dhankaasi Tamilka iyo sidoo kale dhankaasi Bollywoodkana inta badan mostly saaxiibada qiimaha badan soo daawacay laakiin hadda waxa loo darasayaa saaxiibada qiimaha badan sidoo kale inta badan shabakadaha ay soo qoreen filimka Vikram adduun lacageed gaaray 130 karoor ilaa 160 karoor inta u dhaxaysa ay asna filimkaas lagu qarash garay ama lagu iibsaday sida daradeed filimkan ma jarna saaxiibada qiimaha badan asna si hoos ay iskaga bilaawday sin kasto filimkan saaxiibada qiimaha marka hore loo darasay lacagta nadiifka inuu geeno doon lacag gaarayso 6 karoor haddana qolay jaradaha qeyb waxay ka heleen in ku dhow 7 karoor ay ka heleen bal markaan saaxiibada qiimaha badan soo qaadana filimkii weena F3 oo hogaamiyaal ay ka bantakeyshay frontage filimkan maalintii 8aad waxa uu qabsoomay isla fiirin doona saaxiibada qiimaha badan filimkan weegiisa labad ay gudagalay sidoo kale hadda waxa la sheegay 50% daro ad ayuu sameeymo hoos u dhac ayuu sameeyay taas waxa ugu wacan maadaama 3 filim ay shalay soo baxeen sidoo kale ma jarna dhankaasi Telugu si adag loogu daawanayo saaxiibada qiimaha badan filimkan F3 maalintii 8aad dhankaasi dhulka laga leeyahay Telugu kaliya wuxuu ka soo xareeyay canshuurta ka hor lacag gaarayso 1.25 lag ayuu soo sidoo kale qolay jaradaha qeyb waxay keeneen saami gaaray 77 lag ayay keeneen sidoo kale filimkan ganacsigiisa guud markaan 8 maalmood isku darna Telugu wuxuu soo xareeyay saaxiibada qiimaha badan lacag gaarayso saaxiibada qiimaha badan 63.40 karoor ayuu soo xareeyay canshuurta ka hor qolay jaradaha qeyb waxay keeneen saami gaaray 39 karoor bar ayay ka heleen filimkan saaxiibada qiimaha badan suuqyada kale Hindi wuxuu ka soo xareeyay lacag gaarayso 2.67 karoor ayuu soo xareeyay overseas-ka suuqyada caalamkana filimkan wuxuu ka keenay lacag gaarayso 6.80 karoor wadarta guud filimkan ganacsigiisa 8 maalmood dib markaan isku darno wuxuu soo xareeyay canshuurta ka hor lacag gaarayso 81.80 karoor ayuu soo xareeyay qolay jaradaha qeyb waxay ka heleen saami gaaray 49 karoor ogaada filimkan saaxiibada qiimaha badan F3 marka hore waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 63.60 karoor ayaa lagu iibsaday soo hadamaysar noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo lacag gaarayso 64 karoor bar darajadaasna saaxiibada qiimaha badan waxay kaga dhimanta almost lacag gaarayso 15 karoor bar markuu dib u soo celiyo filimkan noqon doona wax loo yaqaan kaliin hid damaysar ay noqon doona sida daraadda hadda filimkan saaxiibada qiimaha badan waa filim average ayuu noqday darajahan sidoo kale saaxiibada qiimaha badan almost qolay jaradaha qeybay 20 ilaa 25% ay kaga dhimantaa saamiga filimkan ay ku iibsadeen sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan waxa ka leedahay 3 filim weena sida shalay soo baxeen inuu ganacsi adag sameeyay filimka weena Vikram sidoo kale ninkii Akshay Kumar filimkiisa Samraat Raj saaxiibada qiimaha badan asna sida dhaxaad iskaga formay sidoo kale filimka lagu magacaabo Maajarna saaxiibada qiimaha badan asna marka hore in la filayo intii la mid ayuu keenay sidoo kale saaxiibada hadda waxa la leeyahay filimka Akshay Kumar hogaamiinka waxa la leeyahay maanta oo sabti ah ganacsi adag ayuu sameyn doonaa sidoo kale soo rukac ayuu sameyn doonaa laakiin filimka Vikram saaxiibada qiimaha badan looma dhaban karo maadaama qolay jaradaha qeyb saami gaaray 35 karoor ay keenay dhaywankooda waxaan hadda lagu sharaxay filimkan 3 maalmood 100 karoor ay keenay doona qolyaha jaladaha qeyb maadaama saaxiibada qiimaha badan Vikram almost 4 sano shaashada ka maqan sidoo kale filim adagna oo la soo laabtay aragtideena comment noogu reeb 3 filim ganacsiyada ay sameeyaan waxa ka leedin saaxiibada qiimaha badan hadda yaa isleedin 3 filim yaa hid noqon kara markii Akshay Kumar hogaamiinka amase Kamal Hassan filimkiisa amase wiilkan lagu magacaabo Adifa Shah filimkiisa ayaa hid u noqon doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan aragtideena comment noogu reeb أتكلم سنتين صاحبة داوش أداوت المقال كان حلقة سنقولن برنامج كان أخبار برنامج وحلقة سنقولن صاحبة قيمها برنامج كان أبديت كبوكس أوفيس كنت بدنا وحنقص وقادنا إن أبديت أن كسينا أفلامته تياتر صار كان عسيد اسمنا يعني وتكلم سنتين صاحبة داوش أداوت المقال كان هديت أمريكا كوري صوب قناة شانل كسب سكرام نصار سيدو كلا لومن إن مقال كلا نصار تأركتها كومنت نقرب هدا كمتى صاحبة ورنو الجو مقال كشر صاحبه نكسن هذا كل شانل كوكو صوب برا أنت برنامج كان برنامج لما تقول منه أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.